magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Dilcow waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab marka heestan hadda qaaday waxay tahay anigu qosayso dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 6/25 bay ugu dhacday ku daliishadeen wallahi kulleeba waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaayeen anigu inaan dhalinyarada baan iska ardaya oo markaas xaafadiisa jooga halka degmada Daynil laban deganaa laakiin waxa ka bari jiray degmadan oo hawlwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacmar asasiisan dhamaantiinba Instagram-kaygu igala soo xidhiidhay markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacmar asasiiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xidhiidhay oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii dijisbaadka magaaladan mar labaad Sacmar Aksan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacmar Aksan Cabdiqaadir عاونا هسويني قضية
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان bishaaro macadka imaamu naafic waxa uu qur-aanka kariimka kugu baraya hab casriya oo online ah adiga oo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo bulshoy haddii barashada qur-aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid a barashada qur-aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada kuu muuqanaya mar kasta iyo meel kasta bulshoy ballanteenu waa macadka